cadaalad darrada Soomaalidu samaysay yaa ninkaasi inuu meesha qareen ka noqdoba kow ka ah nin laga yaabo inuunan maxaan ku dhahaayay waxyaabo ku dooday maxaa ka mid ninkan wuxuu ku doodayaan ku sheegaya wuxuu yiri horta kiiskan la xukumay ee maxkamadii racfaanka iyo maxkamadii gobolka Banaadir ba soo maray labaduba isku meesha ay ka qaateen horta bataatan ba baaris ma soo marin buuri laguma xukumin buu yiri dambi baare intuu soo baaray cadayma keenay oo akhriyay ma jirto yiri wixii socday muxuu ninka waa la soo bitiriyay ku shidaal adag lagu soo shubay makti sid wax ku dhow kulli waan la siiyay anigu islaahay bay iga og islaahay kulli ninkan wax hada wajigiisa muna saagu fiiqeen wax yar kharash yar kulli wajigiisa muna ugu fiiqeen wuxuu yiriba baaris horta ma jirin buu dambi baare akhriyay oo kow halka oo cadayna keenay bataatan ma meeyna jirin buu hadda la socwaana beentii يعني dadku yeen run moodi ma leh halka xukun jiro mid labaad buu yiri hadana wuxuu yiri cadayn maxkamadeed oo maxkamadu intay wax cadaysay ay tiri baarista markii la sameeyay cadayntaasaan helay oo koow oo laba oo saddex la isdaba dhigay iyana lagu xukumin buu yiri oo labada maxkamadu hore maxay ku cadeeyeen ku dil wax kumeen xuha cadayn ma jirin buu yiri mala un bay ahayd buu yiri gabadh baa gubatay oo way dhimataa la yiri kulli isaga ka dambeeyay ahaan samba waxa dhanba loo sameeyay tuhun baa lagu xukumay buu waad ma jira buu yiri xeer ilaalinta cadayn intay soo qortay oo tiri kadib markii dambi baaristu soo samaysay xeer ilaalinta cadaynta ay heshay ay maxkamadii guddoonsiisay maxkamaduna ay anaga nagu dul akhriday eheladii iyo difaacayaashii ama qareenadii wixiga waad dhaqaatiirtii wiil Cabdiqaadir la dhahaa tuhmayo buu iyo gabadh Faadumo la dhaho oo dhaqaatiirtii meesha gacanta ku haysay ahayd ma ayna noo sheegin buu yiri bataatanba in luul ay u dhimatay dabki waa wiilka uu leeyahay sahalkiisa aan ka dareemay gabadha ganacsi isku lahaayeen wax uu noocaas u dhigayaa tuhun kale oo sii gelin doonaa in dhaqaatiir dishay tuhun ayuu sameynaya wuxuu yiri horta dhaqaatiirta loo geeyay dhaqaatiirtii qalliinka ay ahaayeen dhaqaatiirtii daweynta ma inahayn buu dhaqaatiirtuna laba u kala baxdaa kuwa qalliinka iyo kuwa daweynta dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen buu yiri bataatan ba inayna dab u dhimanin luul mise u sheegeen wala weydiin doonaa oo ma u dhihi doonaa meel uu ka keenay garaadu jeebka kala soo baxay waxaan isliintu qayilay umbuqaadku waxa astaghfirullah qaadka waxa tusay kaas qareenka ku xalay waa isaaqo xagwada joogay dad soo diyaarsaday wax warqad ka akhriyay Soomaa kiis caafimaad lagu diyaariyay maahan difaacidani difaacid caafimaad lagu diyaariyay maahan kolkii su'aalihii uu isku difaacayay dhammaan jeediyana kurtigood ee dib loo weydiiyay hal su'aal oo run ahaan kaga jawaabay ma jirto ma umbeeri waad ku soo wada xuyri dhaqaatiirtii waxay tiri buu waxa u dhimatay laba qodob fuuq bax iyo pressure-ka dhiiggeeda kor u kacay kabta dhakhtar qalliin looga diray in dhaqaatiirtii daweynta loo diro fuuq baxaana la nafaqeeyo la daweeyo pressure-ka kor u kacayna la dajiyay ahayd buu waad takale luul الله نحرسته لح بري يا نولد بوري دكتور كتالي وات لح بري روح نولانا إنه كسر هذا مو يعني خطر كده على أمور دنتوير واسو حقيقي مرة هذي لح بري نولد دخاتير تي هيسي دخاتير بعدا أو قبل ده إنه يسون كدرين حلو دلواي أو كرك لو كيني واي marka ma dhaqaatiirtii waa waxaan ku leeyahay kiiskan qaad buu ku dhisay marka ku leeyahay kiiska meesha uu ka soo bixinaya farsamo xumadeeda yaa ka arkaa moogta hay waan fahnay wuxuu yiri dilkan xilliga la dilay cadayna looma hayo maragna looma hayo qareemadu waa tuhum buu yiri isba qareenku waa tuhum buu yiri qareenku wuxuu tuhumo waxa lagu dhisaa buu yiri marag iyo cadayn يا بارد محكمته أن صوم مرنينا
qareemadoodii unba wax ku xukumeen buu yiri qareemadii gabadha lul u socotay wixii ay tuhmeen unba wax ku xukumeen buu yiri marag ma lahayn cadayn waa qareen tuhmay tuhmkiina waxbaa lagu xukumay buu yiri qol baa la gubay oo gubtay waa kaliya buu yiri inta ay noo sheegeen buu qareemada qolka la gubtay luul miyay daminaysay luul miyay ku gubatay luul ma sabab kale u dhimatay qol baa gubtay iyo ruux baa la dilay isku meel ma galaan buu leeyahay intaan yaabay intaas waan fahanay marka uu soo wadaa wuxuu yiri kiisku markuu siyaabaha noqdo buu yiri ee uu nooca noqdo laba midba way banaanayd buu yiri in laga wareejiyo waxaan aynu qorqoranay oo culimada loo aad oo 1963 iyo 64 muu yaa la qoray xeerka wax lagu maamulayo ka hor Soomaali way noolayd say isu maamuleysayna culimada bal isaga ku sheegay inuu asalkii laga soo guuray culimada ma loo noqdo buu oo intii masaajida la galo culimada ma kiiskan lagala tashado waa midkaas khabiir ma loo yeedho buu yiri kiisaska noocana wax ka xalliya dhaqaatiir sare oo gabadha laabteeda jeex ama madaxeeda jeex oo inay gubatay ka ogaada iyo inayba sun u dhimatay ma la raadiyay buu yiri inta uu dilka anaga la nagu soo hortay ugu dambeyntii ninkii wixii soo dhacay oo dhan waxba kama jiraan buu ka dhacay kiiskiiba banaan cad buu iska istaagay ninkii oo inuu dhimanayaba aanu haysanina meeshan soo indho kuskusan yahay kuma waa Siid Cali oo intuu jeega u jartay manin dhimanaya oo in la tooganayo yaa jeega u jarta inta uu ka dhimanayo ilaahay ku hoos ordaa moogtay oo intuu timaha isla simo oo tusbax weyn qaato uu koofiyad xidho iyo wardiga badiya ruux وبلوحون وحي وجستي هذه لهيك خليك ترى هو الرئيس محكمة بقول قبل هذا اللي جاني يروكو في ضغط يتي دم هذا رحفانك اسكو من معي اسكو موقف اسكو موقال معي اسكو موقال اسكو بالله ما هي صوت محيط وبالعيد يبي هبينكي وقاري مقالة كل حوة تابع اللي يواجس موقتها سو قاري وطال دوبي ولي بقى عنتي أي بنتها هذه اللي أنا حتى موقال لكن ما هبينك أنتي صوب عشان الصبح محكمة دويمة ده ولا يبصدي بأنهم ملاين سوق كيس مقالة جوجي كودي علوسة علوسة هدي اللي يمسكها برك هو راسه عليها كودي سؤال على جوالي حليلي هذا نقول عليا اللي قال دعوة دي محكمة هي عطايمها هيستين دي وآخرين